Barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Shiir ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maktabadda qaranka iyo mas'uuliyiin kale oo horkacaya oo booqasho ku yimid magaalada Laascaanood. waxaana gudoomiyaha maktabadda qaranka iyo barasaabka gobolka Sool daafureen website magaciisa la yiraahdo cilmi.org oo lagu kaydinayo xogta iyo taariikhaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. oo markii uu horeysay maktabadda qaranku dadaal dheer ay sameysay hawada soo gelisay. kulankan ayaa waxa goobjoog ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool, gudoomiyaha ku-xigeenka waxbarashada gobolka, gudoomiyaha ku-xigeenka jaamacadda Nugaal iyo maamulayaasha qaar ka mid ah dugsiyada sare ee gobolka Sool. iyadoona gudoomiyaha maktabadda qaranku deeq bugaaga ku wareejiyay jaamacadda Nugaal iyo qaar ka mid ah dugsiyada sare ee gobolka. gudoomiyaha maktabadda qaranka Axmed Daahir Cilmi ayaa faahfaahin ka bixiyay website-kan. marka hore uma hadlaqayaa in gudoomiye Cabdiqani Maxamuud Shiir gudoomiyaha gobolka Sool inuu halkan maanta lagu marti qaaday runtii sharaf weyn iyo qadarin oo ah anigoo ku hadlaya magaca maktabadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland inaan halkan ku launch gareyno maanta website aan ugu talagalnay in waxa la wixii buugaag laga qoray Jamhuuriyadda Somaliland iyo wixii research laga sameeyay ama report laga sameeyay oo shalay soo dhameystirantay inaan gobolka Sool website-kii wuxuu soo dhamaaday shalay waxa la wixii buug aynu heli karaynay muddo labadii sano u dambeeyay wixii report ama research laga qoray oo dhan baa aanu badna gelinay inta kalena imika bishan oo dhan ayaa lagu shubayaa jaamacadeena iyo iskuuladeenna waxay ardaydu si lacag la'aan ay u isticmaalayaan website-ka jaamacadaha ardayda dhigata ee research-ka sameynaysa waxyaalaha ay qoraan ama dadka scholarski ay qoraan waxay noqonaysaa meel aynu gelino. gudoomiyaha ku-xigeenka waxbarashada gobolka Sool iyo ku-xigeenka jaamacadda Nugaal iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dugsiyada sare ee gobolka ayaa soo dhaweeyay website-kan oo ay sheegeen in loo baahnaa. ka wasaarad ahaan aad baan ugu mahadnaqanaa maktabadda qaranka waana ku faraxsanahay inaan noqono gobolkii u horeeyay laga daafuro oo ay la shaqeynayna maktabadda qaranka. arrin muhiim ah oo aan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo maanta meel lagu launch gareynayo xogtii iyo macluumaadkii ay ummadani lahayd si heer sare abuu samaysan yahay oo member laga noqonayo oo qofku xubin ka noqonayo wuxuu rabo isagu uu ku soo biirin karayo gelin karayo. marka aad baan u soo dhaweynayaa si farxad leh waana ka qayb galeynaa waan ku soo dhaweynaynaa maxaan ku raahdaa madaxa masxafka. runtii waan soo dhaweynaynaa waana kaaga mahadcelinaynaa runtii maatinka aad noo timi iyo horumarka aad gobolka aad ku soo kordhisay. barasaabka gobolka Sool ayaa dhankiisa uga mahadceliyay maktabadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dadaalka ay ugu jirto ururinta taariikhda faca weyn ee uu qarankani leeyahay. waa farxad gaar ah inoo tahay dhammaanteen inta aynu la egnahay runtii dad ahaan iyo bulsho ahaanba in maanta waxaan uga mahadcelinay gudoomiyaha maktabadda qaranka in Laascaanood uu yimaado isagoo Hargeysa ka soo safray waqtiga inta leegna soo socday sidoo website-ka cilmi.org ugu daafur lahaa gobolka Sool iyo isagoo bahda waxbarashadu heer jaamacadeed ilaa heer dugsi sare ay goobjoog ka tahay wasaaradii. waa kaaga mahadcelinaa Axmed runtii wada shaqeyn wanaagsan deeqda aad noogu deeqday 20 kartoon ee 10 jaamacadda Nugaal ugu deeqday 10 dugsiga sare ugu deeqdayna waa ka gudoonay insha Allah. waxay wax ka tari doontaa runtii horumarka deegaanka iyo dadka waxay wax ka tari doontaa akhriska waxay fududeyn doontaa in ay bulshadu helaan meel ay u noqdaan intii wax kale lagu mashquul lahaa in dhalinyarta gobolka Sool ku wacyigelinaya inay website-ka xiriir fiican la sameeyaan cilmi.org oo ay booqdaan runtii si ay uga helaan macluumaad fara badan oo cilmiga ku saabsan. anagu dhawaan waxaan astaynay oo dhagax dhignay agaasimiga guud maxkamada nala jooga maalinta halkii laga dhigi lahaa maktabadda gobolka
waanu samaynay runtii waana noo astaysan tahay rehabilitation bay u baahan tahay iyo dib habeyn taana waa ka howlgeli doonaayo looyma ka samayn doonaa sidii kowlaataka loogu dar lahaa miisaaniyadda qaranka liibaan qaran warbaahinta qaranka Somaliland Laascaanood.